agaasimayaasha taliyayaasha hoggaanka canshuuraha kastamka ganacsatada iyo dhammaan shaqaalaha kastamka waxaan idin leenahay wasalamantiin waxaa sharaf iyo maanta inaan markii afraad ka soo qayb galo xaflad lagu weyneynayo lagu xusayo maalinta kastamka adduunka aan kala soo qayb galo wasaaradda maaliyadda gaar ahaan tiimka annaga aan toos wada shaqeyno waaxda canshuuraha iyo kastamka runtiina saad u ogtihiin Soomaaliya waxay ka timid meel fog muddo ku dhow 20 sano ayaan dawlad aan ahayn dawladnimada hadda meel bay soo martay waxaan ognahay iyadoo dad gaar ah canshuurta qaadaan waan canshuur la qaadin waxaan soo marnay iyadoo aan service la qaadin maalin meel ay soo martay dawladnimadu Soomaaliya runtiina maanta waxaan maraynayaa meesha aan marayno iyo wax laga soo maray in nidaamkii la soo celiyo dawliga lana casriyeeyo nidaamku waa jiray laakiin nidaamka inuu la jaqaado mar walba marxaladda adduunka markaas ay marayso marka waxaan ognahay in dadaal badan iyo juhdi badan la galshay waa ognahay wax dhiban yihiin ama ha ahaato xagga dekadda ama ha ahaato xagga kastamka laakiin waxaan kugu bishaareeynayaa in labaduba ay mashruucoodu meel fiican marayo kullay maantana wasaaradda ayaa warbixin ka sii doonto mashruuca somkaas meesha uu marayo mashruucaas oo runtii wajiga wax weyn ka bedeli doono ganacsatada Soomaaliyeedna u fududeyn doono in badeecadahooda ay kula baxaan ayagoo aan dekada imaan juhdi badan gelin ayagoo xafiisyada jooga ay canshuurta bixin karaan nidaamkaasna wax weyn ayuu ka bedelayaa ganacsiga Soomaaliya wuxuuna la jaan qaadayaa nidaamka adduunyada ka jira ee hadda habkan u shaqeyno oo habkii hore runtii ma sii shaqeyn karo taabid lamida dabcan in nidaamkaas uu hirgalana waxay u baahan tahay in dekada laftirkeedu loo sameeyo waxa la yiraahdo terminal operating system oo iyadana u fududeynayso in nidaamkaas uu si la jaan qaado kaana insha Allah hadda ayaa tandaradiisa gacanta lagu hayaa in marka horena infrastructure-kii la diyaarsho kadibna la keeno software-ka tababarada la baxsho kaasoo markaas u noqon doona saldhig in badeecadihii imaanaya wadanka la sii og yahay nooca ay yihiin waqtiga imaanayaan taasoo markaas fududeynayso in canshuurtii qofku ganacsaduhu uu sii canshuuran karo soo badeecadii wadanka soo galin si markay badeecadu soo gashan uu wixii ula bixin karo marka taas waa mid guud ahaan waa ogtihiin wax qarsoon ma aha 5 sano u dambeysay iyo sanooyin ka horeeyba in wasaaradda maaliyadda wax badan ka qabatay in nidaamkii finance wax badan laga bedelo ama ahaato wasaaradda maaliyadda ama bangiga dhaxaato taasoo horseeday maanta in Soomaaliya ay waqti saartay in canshuur dhaafkii aan bilownay qaybihii u dambeysay hadda aan marayno anagoo og wadamada dariskeena qaarkood oo Suudaan ugu dhowdahay inay muddada wali aysan xataa u dhaweyn annagana hadda aan joogno heerkii ugu dambeeyay ee gabagabada ahaa taana dabcan waxay ku timid dadaal badan oo wasaaraddu gelisay wasiir Baylana si gaar ah ayaan uga mahadcelinayaa hawshaas oo ka qabtay runtii oday Soomaaliyeed waaye oo khabiir ku ah dhinacaas mudane ka soo shaqeeya baaninka caalamiga waxayna sahashay asaga iyo tiimkiisa runtiina wasaaradda waxyaabaha lagu amaanaya waxaa ka mid ah in dad badan oo dhalinyaro ah qoojahana ay joogaan waana muhiim in dadku aqoonta loo heliyo oo marka hay'adihii lagu abuuro dad aqoontii leh oo wixii fahmi kara lana jaan qaadi kara dawladnimaduna saas bay ku dhismi kartaa laakiin jeclaysi iyo waxay ila tahay iyo yaan qaraabanahay iyo macna u sameyn mayso dawladnimada Soomaaliya marka waxaan leenahay wasaaradda kulli iyada noo sharxi doonta meesha uu marayo systemkaas intaasaan warka ku soo gabeynaya waa mahadsantiin